Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada daawadayaal, kusoo dhawaada channelkeennii ummadda. Maanta waxaan inoo wadaa qiso. Qisadani waxay ka dhacday waddanka Sacuudiga, magaalo la dhaho Qadiif. Qisadan 2007 waxay ka noqotay qisooyinka loogu hadalhaynta badan yahay iska daa waddanka Sacuudiga iyo caalamka Carabta ee guud ahaanba adduunka. Waxa dhacday in ay qisadan sida musalsalada loola socdo. Qisadeena guda galo. Stationka magaalada Qadiif baa waxa yimi nin wax la socota naag. Ninkana wuxuu ku andacoonayaa in xaaskiisa la kufsaday. Nimankii waxay dhaheen yaa kaa kufsaday xaaskaaga. Wuxuu yidhi waxa kufsaday 7 wiil. 7 nin ayaa kufsaday xaaskayga. Waxa la yidhi haye bal hadda adigu halkaa fadhiiso bal xaaskii baa la wareystay. Siday kuu kufsadeen baa la yidhi adiga waxay kugu dhaceene. Waxay tiri intii aanan ninkan guursan waxa jira wiil la socday. Waxay tiri 2006 bay ahayd sanadu 2006 waad ogtay yani adduunku sidoo ahaa xitaa taleefanada sida looma hormarin. Waxay tiri sawiro ayaan wiilkan u diri jiray. Sawiro ay midaqaawan tahay mid reerkooda la joogto waxay qabanayso halkay ku jirto waxay cunayso adu taxane bay sawirada ugu diri jirtay. Waana wax laga taxadiro oo loo baahan yahay gabadh kastaaba inay taxadir yeelato. Waayo ninku rabaa adiga oo ama qaawan ama waxan sameynaya inuu ku eegto lagama yaabo. Waxa dhacday inay gabadhani tiri markii aan u diray waanu kala hadhnay. يعني calaf ba iskumaano lahayn sidii baan ku kala hadhnay. Ninkan guursaday waxay tiri tan iyo maalinkii uu maqlay waa guursatay wuxuu igu wada caga juglayn. Wallahi sawiradaadaan faafinaya. Waxay tiri maalin dhaweyd baa ninkayga u sheegay oo ku yiri ninka ayaa igu sawiradayda naftayda igu keenay. Ninkaygu wuxuu igu yiri waynu anaa ka doonaya laakiin waxaan ku yiri may kama doonaysid. Waxay tiri sidoo ila soo hadlo maalin dhaweyd bay la soo hadlay. waxaan ku walaalo iska keedaa. Wuxuu yiri ma doonaysaa inaan ku daayo waa inaad meel hiblaayo igu timaadaa. Waxay tiri waayahay. Ninkeedii baa u sheegtay xaaskii. Ninkii waa ka diiday. Wuxuu yiri may nin yeelay xaaskiisa nin u caga jiglayn jiray waliba horena ula socon jirtay inay raacdo caqliga ma gali karto. Wuu diiday laakiin waa ku adkaysatay. Waxay tiri waan aadaya. Ninkiina wuxuu ku yiri ma aadi kartid. Markaas dhuumasho abay ninkii ugu tagtay. waxay tiri gaari buu meel iigu sugayay gaarigii baan koray. Gaarigii buu raacay kaxeeyay. Waxay tiri meelo lagu nasto oo magaalada Qadiif dabadeeda ah ayuu ila tagay. Waxay tiri gaarigii markuu saa u istaajiyay waxaanu aragnay 7 nin oo hareer hananka jirta. 7 nin gaarigii bay inta xoog u gilgileen fur yiraahdeen waa furay waa la soo saaray anigiina waa la soo saaray. Waxay tiri anigii waxay kufsaday 6 nin isagiina waxa kufsaday nin. Haye sida halkan ku joogaa ninkii baa loo yeeray. Kaali baa lagu yiri maxaa say wuxuu dhaceen. Wuxuu yiri anigu waxba iguma sameeyay iyadoo bay kufsadeen war waa ta gabadhu ku arkayso sheegtay say wuxuu dhaceen. Markaas uu sheego wuxuu yiri anigoo da isla gabadhan kufsaba caawa oo yani isagii baa niyada waxan ku hayay. Ba 7 nin aanan garanayn haybtooda laakiin aan wajiyadooda xasuusto ayuun baa maxay tahay noo yimi. Gabadhiina waa kufsadeen mid baa kufsaday. Yani markii dambena intayna soo qaadeen bay magaalada dabadeeda nagu soo tuureen. Haweenaydan ayaa Ilaahay wuxuu ku caawiyay inay ninkeeda taleefankiisa xafidsanayd lambarkiisi waa wacday saasuna noogu yimi. Haye halka ma la joogay nimankii haybtoodu waa la gartay waa la soo qabtay. nimankii dayaga wax doodaba ma jirto meesha dubu kufsiye yaalo. Maxkamadii waxay noqotay saxane maalin walba waan la soo istaagaa maalin walbana waan la isdhageystaa. Waxa dhacday in ay 2007 xukunkii xaakinku uu noqdo wax qof walba ka fajiciya. Yani qisadan 7 gabadhan 6 nin kufsadeen iyo wiilkan ninka kufsaday ee isagu markii islaha gabadha dabinka u dhig waxa ka darnaa xukunkii riday maxkamadu. Waxa dhacday in lagu yiri wiilashan waxa lagu xukumayaa min 1 sano iyo 8 jeedala. 8 jeedala iyo min 1 sano hada waa gabadhay 7 6 nin kufsadeen iyo wiilay mid kufsaday. haye
waa laga wareegay waxa lay gabadhii falkaas oo dhanka dambeysana waa 9 jeedala dadkii oo dhan waa yaabeen ma dambiilihii iyo qofkii dulmana ahaa baa isku si loo xukumaya maxkamaddu waxay tiri gabadhani hadduu ninkeedu u diiday maadaama ay bilaa muxram socotay lagana yaabaa inay falka ninkaas hadduu dhahdo sawirada waa ku siin lahaa ay la samayn lahayd sida la ajligeed baan ugu xukunay arrinkii cirku isku shareeray Sacuudigii dadkii waa wada kaceen ninkeedii ayaa xoristay TV la dhaho LBC oo wadamada Carabta ka shaqeeya Lubnaan mooji meel ugu yaal xaruntiisa ugu weyn laakiin kulli Carabta oo dhan badan ka shaqeeya TV-gii buu uga waramay wuxuu caadil maaha xaq maaha xaaskayga 9 lagu xukumo nimankan xukunka waa loo yareeyay maxkamadii iyo xukuumadii Sacuudigu cadho waxay ka qaaday warka uu fidiyay waxba la yiri maada waxba arkay haweenaydii waxa loogu xukumay 200 oo jeedala iyo 6 bilood oo xariga maadaama uu warkii fashiliyay waxa dhacday in ay yani dadkan xuquuqda dumarka u dooda madaxweynayaashii hore ee Mareykanka soo maray haday Barack Obama tahay oo yani markaa waxaan wada inaanu hayn xilka George W Bush Hillary Clinton gabadhiina Switzerland tolo ra'iisul wasaaraheeda hore Helena lahaa wixii oo dhan baa kacay waxa lagu yiri waxaan xaq maaha waxaad ku dhiiri gelinaysaan bay dhaheen xitaa Mareykanku in aad dhalinyaradii Sacuudiga يعني dhiirigelin u sameeysan oo tiraadan kursada gabdhaha waxaasina xaq maaha arrinkiina waxa laga codsaday Cabdullaahi Cabdulcasiis in uu soo dhex galo yani waxa weeye boqorkii dhintay ee Sacuudiga Cabdullaahi ibn Cabdulcasiis waxa weeye boqorkii dhintay ee wadankaasi Sacuudiga 2007 December 18 aroor salaasa ayaa boqorkii meesha soo dhex galay markii wasaaradii arrimaha dibadda tii Sacuudiga Mareykanka ee Sacuudiga wixii bakaceen boqorkii wuxuu yiri gabadha waa la cafiyay sida ayna qisadaasi ku dhamaatay waan rajaynayaa inaad ka heshay channelka subscribe saar gambaleelka furo fiidiyoodana like saar waad mahadsantihiin salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh nooli kulanteen